وبعد دمان مسلمين تا جودهان كارهان ومد الصوماليات ميلو الويتشوغان با واني والسلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاوة فعلا ما نام كنت لك الشنين إن رمضان تهي محايا لمعلومات كان هيني إن بشو عاوة تهي سديدي لواتن أيان كنت لك الشنين laakiin su'aalo badan baa hadda igu soo dhacay oo meelo fara badan la iga soo weydiinayo caawa ma ramadaan baa saas daraaddeed waxaan go'aansaday inaan kelimo yar ka idhaahdo caawa oo khamiis soo gashay caalamul islaami intiisa badan ramadaan uma aha soon uma aha maanta 28 bay u ahayd caalamul islaami intiisa badan berri baa 29 u ah oo khamiis ah habeenka jumcadu soo galaysana caalamul islaami intiisa badan waxa uu soo galaya 29 baa u dhamaatay habeenka jumcadu soo galaysa 30 buuxa u ah saas daraadeed galabta khamiista qorraxdu markay dhacdo ayay bisha raadin doonaan cidda aragtida ku soonta ciddii iyagu falag iyo xisaab ku soomana meesheeda weeye macluumaadka aan hayo marka dawladaha qaar ka mid ah sida Turkiga Ciraaq oo kale Masar meelaha qaarkood waa ku arkay ayaa maanta 29 maanta oo Arbaca ah ayaa 29 taqriiban xisaabsanayay iyaga marka berri 30 buuxay u noqonaysaa haddayna galabta arkin falakiyiinta culimadan falaguna waxay leeyihiin galabta oo Arbaca ah in la arkay bisha adduunka meel laba suurtagal ma aha bay leeyihiin wallahu a'lam ayaga marka qolyaha aan sheegay khamiista 30 buuxa u ah jumcadana toos bay u soomayaan caalamul islaami intiisa badan dawladaha khaliijka ilaa dawladaha bari jira Pakistan ilaa Indonesia ilaa Malaysia ilaa dawladaha muslimiinta Afrika ku yaala caalamul islaami intiisa kala badan waa sida loo badan yahay maanta oo Arbaca waxay u ahayd 28 bay u ahayd berri oo khamiisana waxay u tahay 29 berri galabnimadii qorraxdu markay dhacday bisha raadinayaan cidda aragtida ku soonta hadday arkaan jumcada ayay markaas soomayaan hadday arki waayaanna sabtiday markaas soomi doonaan waa qolyaha aragtida ku sooma weeye maanta oo marka Arbaca ah bishii in la raadiyaba qorshahanaga ma ahayn laana xisaabta iyo aragtida aan yani wax weeye ku xisaabtamaynay maanta ma ahayn in la raadiyo ilaa ay haddana wax soo sheegay ma hayno dadkana waxaan u maleynayaa waxa khalday oo caawa inay muxuu ahaay telefoon iska soo daba dhacaan waxa kalifay laba qodobka koobaad horta waxa weeye kalendarka muxuu ahaay ayad wuxuu tilmaamayaa iyo saacadaha la wato iyo inay bisha maanta 29 tahay arintaasina waxa ka aragtida bisha waxa la arkay oo aragtida rasmiga la xaqiijiyay waxay ahayd labtii Arbacaan baan ka hadlayaa Shacbaan aragii la arkay waxay ahayd galab Arbaca ah habeen Khamiisa soo galayso sida marka la yiraahdo waxay noqonaysaa ay maanta 28 ahayd berri oo Khamiisana 29 tahay waxa aragtidii iyo kalendarka xisaabta ku qoran ama saacaduhu ku tusayaan way isdaba mareen aragtida la raacaya qodobka labaad ee dad badan qalday waxa maqtac video ah oo Al Jazeera ay leedahay oo la soo gooyay dadku isu dirdireen kaas maamaya ka hadla jumco iyo khamiis maqtacaasna waa khalad oo ma ahayn hadda ma aha sanadkan ma aha wuxuu ku saabsan yahay sanado hore oo tagay buu ku saabsan yahay markaas inta la soo gooyay ba waxa laga dhigay in sanadkan arintaasina waa khalad labaad oo dadka khaladay marka murtidiisu waxa weeye markaan soo gabagabeeyo markaan la hadlayo waa habeen ay khamiisi soo gashay Arbaca
xaday taariikhdana ay tahay 22-ka bisha Abriil ay tahay caawa oo khamiis ah lagumana tala gashanayn in la raadiyo wax sheegayna ma hayno sidaas daraadeed berri oo khamiisa galadeeda oo habeen jumca soo galayo hal la raadiyo bishii araggeeda hal la raadiyo caalamul islaamiga ha laga warhayo warbaahinta ha laga warhayo cidii arki karto ka joogto hal laakiin hadda wax soona wax ma hayno warkeeda marka sidaasi iyo ilaahay tabaaraka wa tacaala nabadii aynugu gaarsiiyo bisha barakaysan ee Ramadaan tabaaraka wa tacaala goortay dhalato haynaga dhigo kuwa ka faa'iideysta rana tabaaraka wa tacaala khayrkeedii wanaageeda hayna waafajiyo hana inaga aqbalo aad baad u mahadsantihiin wajazaakumullahu khayr wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh